السلام عليكم مقارنة من بدكتور سلامتين reer Columbus ama reer Ohio dhamaantiin bari waa primary electionkii maalinta ugu dambeysay codeynta ee gobolka Ohio bishii la soo dhaafay waxaa socotay early voting laakiin bari ayaa ugu dambeysay kursiga xamaasadda leh aan isha ku hayay warbaahinta badankeedna isha ku hayaan reer Columbusna isha ku hayeen waa kursiga district 3 oo hadda fadhiyo Ismaaciil Maxamed kursiga ayaa warbaahinta waxay qoraysaa qobarada wax saadaaliso ayay waxay sheegayaan in Ismaaciil Maxamed uusan soo laaban doonin mar kale sababta waxay leeyihiin beeskii uu ku taagnaa xaafadan ayaa markii hore u codeysay 2 sano ka hor markuu la tartamay musharax Kelly Soomaalida ayaa soo baxday district 3 masaajidadkina u soo baxay oo codeeyay balse tookadan waxay leeyihiin markii kursiga uu tagay uu la jirsaday oo aan dooranay 2 sano ka hor oo aan dooranay ayaa waa ogtihiin inuu qoomuluudkii la jirsaday sharciyaal uu gacanta u taagay ansixiyay in carruurta la qari karo waalidiinta xaq u leeyahay carruurtooda waxay barnaa inay ogaanin la bari karo qoomuluudka jirkooda carruurta la qali karo iyo sidoo kale in uu Falastiin ka soo horjeestay 40 kun laga dilay Israa'iilna la jirsaday sababta zaraadeed ayaa waxa la dadkii xaafadan degnaa beeskiisa u xanaaqeen u kaceen oo aan ka mid nahay dhamaanteen sidaas zaraadeed ayay leeyihiin dadkii badankood dhamaantoodna u codeeyeen musharaxa kale ee la tartamayo oo kursiga hadda kula taagan marka waxay qobarada sheegayaan iyo warbaahinta sheegayaan in isaadaasha hordhaca ah oo soo baxaysa sheegaysaa inuusan Ismaaciil soo laabanaynin oo laga reynayo early voting hadda waxay leeyihiin waa laga watay waana laga wataa laakiin bari waxa dhacayo lama yaqaan oo maalinta ugu dambeysay codeynta bari 80% dadka Mareykan waxay codeeyaan maalinta ugu dambeysay 20% ayaa codeeya early voting marka Ismaaciil wuxuu isku haleynayaa kaliya campaignkiisa bari laakiin message-kii iyo fariintii wadna dadkii way gaareen dadkii xaafadan deganaa dhamaantood way ka codeynayaan wayna ka soo horjeesteen midaasna waa mid asii campaignkiisa dareemeen dadkii shala soo dooranay maadaama aan nahay u codeeyay lacag siiyay inuu naga soo horjeestay anagana aan codkeena hadda u diinay ama dadka qaarkood meel kale la aadeen gunaanadkii walaalayaal bari ubadkaaga badbaadi carruurtaada badbaadi walaalaha badbaadi dadka xaafadda degan badbaadi ha u codeenen Ismaaciil Maxamed ka codee ha soo saarin Ismaaciil Maxamed lacagna ha siinin bari bas ay hartay saadaashu waxay sheegaysaa inuusan soo laabanin kursigana mar kale ku fadhiisaneen xataa dimuqraadiga xataa way arkeen bishii hadda la soo dhaafay dhan meesha Franklin County Board of Election markay kala tagayeen dadka la safan ama dadka codeynaya aad u dadka musharaxa kale wadana aad u badnaayeen u codeynay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bari ugu dambayso in Ismaaciil Maxamed uusan nagu soo laabin kursigana loo usgareeyo wixii akhbaar oo ku soo qorana waa idin la socodsiinaa aniga maxaan